أنا وحالي سعيد شيخ عثمان هويدنا قبيل كي وحاي مرعان ردين ورد الهويدي ورسمر ريدو مركا أبي وحال الشيخ عثمان أحمد بعل مركا وحن جعلان لهاي إن رر ضدك اللي يقول هذه وحال مدورا كرين دواك ملوك عاي ومرقنا ديديو كعاي وحيدي لموك عاي ضمير كوين تارجمة haddii aad degan tahay guri qurux badan ama aad cunto raashin si wanaagsan loo kariyey mid baan intaba helin kuna nool hareeraha wadooyinka haddii uu gacanta ku horsadana aad ku tilmaantaa derbi jiif Siciid Sheekh Cismaan waa wiil Soomaaliyeed oo 18 jira wuxuu ku nool yahay mid ka mid ah hareeraha wadooyinka ee xaafadda Islii ma haysto hooy uu dhaxanta kaga gabado ama roobka mana helo wax la quuto saddexda waqti wuxuu ku nool yahay meel aan u kala socnayn xayawaanka eeyga iyo bini aadamka wuxuuna xayawaankaasi ka dhigtay wehel noloshayda nolol xuna ku jira yani meeshan waxba ma isti meeshan ku rafaadey marka waxaan jeclaan lahay in waxbarasho ligeeyo meesha saxana waxa waay habeenkii dhaxan qabow waxaan ugsada ma haysto juwaankan dhex galay juwaanka meeshan halka teen siriidan iska saxda casino marka meeshan ana eedada bas ay joogta inkastoo uu sheegay in waalidkii ay joogaan magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo haddana ma hayo meel rasmi ah oo uu kala xiriiro wuxuuna hadda door bidayaa in dib loo celiyo hooyo abu xaywad Mandera hooyada meel abgu lagu sheegay abay xagga hadda Mandera uu jiro ku guur Balad Xaawe xagga sagana dukaan xagga kule marka anigana halkaan shaqaan soo raadso meeshaan ku rafaado marka شعبك معك أحسن له إن لي عاوي wuxuu waxbarashadii kaga tagay heer wanaagsan wuxuuna u yimid Nairobi inuu shaqaysto balse shaqadiisu waxay noqotay in nolosha uu ka dhaco waxa ka muuqda jirkiisa dhaawacyo kala duwan qaarkood waa ay bogsoodeen waxaana u geystay dhalinyarada uu la nool yahay halka kuwa kalena ay ka soo gaareen gaari uu dabada qabsaday meeshan mid ugu dhuftay markaan magaaladan soo galay marka hore hadda cunuga hadda dhintay midko kale joqoraa marka aniga ugu diray wuxuu dhahay iska celin kartaa aniga markii kale waanaaqay أنا قادر إن الله نحرس مركا أصلاً وحلا عبد الفتاح مركا متكي جوي ودري مركا دلو سوقات دلو هالكان وقول أختي إذا كان هالكان وحاوي مركا هالكان بمعنى هذا الكان مركا يقعد عيان وحاوي سميت كان قد عيوان haddaba haddii aad aqoon u leedahay waalidkii ku caawi in wiilkoodii Siciid uu nolosha kaga dhacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaana taasi ay qayb ka noqon kartaa in da'yarkan uu dib u helo waalidkii sidaasina ay ku badbaado dhanka noloshiisa